الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كان وحو كساب سنيهي أدعية القرآن، ducooyinka ku soo arooray qur-aanka kariimka ah ayaynu insha allahu tacaala hal darsi ilaa laba darsi ilaa saddex darsi hadba intii ay naga gaarto insha allahu tacaala ayaynu wax ka sheegaynaa, iyadoo uu yahay qaradka iyo ulajeedada laga leeyahay inaynu ilaahin ku barino subxaanahu wa tacaala ducooyinka qur-aanka ku soo arooray oo ah ducooyin jaamic macnaheedu waxa weeye in badan waa maqla nabi maxamed ilaahay wuxuu siiyey jawaamicul kelim waxa weeye hadal kooban laakiin macno badan xambaarsan. ducooyinka qur-aanka ku soo arooray marka waa ducooyin aad iyo aad u wanaagsan oo kaamil ah oo dhammaystiran oo jawaamic macnaheedu waxa weeye duco kooban laakiin khayr adduunye iyo khayr aakhiraba ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu weydiisanayno. haddii marka aad u dhuuxdid oo aad ugu tadaburtid oo aad u fiirsatid ducooyinka qur-aanka ku soo arooray, khaasatan nebiyada ilaahay marka ilaahay ay baryayaan waxa ay mar walba ay ducadooda ku bilaabaan rabbi ama rabbana aatina fi dunya xasana rabbi habli duriyatan tayiba. rabbi baa aada ugu badan. maxaa yeelay rabbi macnaheedu waxa weeye asayid alqaadir, waa sayidka awood badanaha ah ee waxa aad u baahan tahay awoodo inuu ku siiyo. waa midka isagu ku rabeeyey oo ku ahaysiiyey oo ku mulkiye weeye subxaanahu wa tacaala. marka isagii ayaad waxa leedahay ilaahu adiga ayaa i ahaysiiyey oo sayidkayga ah, adaana awooda waxa aan ku weydiisanaya, ilaahu ii ajiib ayaad leedahay, saasaad dhahaysaa. marka ducooyinka nebiyadana insha allah waynu tilmaami doonaa. badanaa haddaad qur-aanka akhridid waad arkaysaa iyagoo ole rabbi ama rabbana ayaa ducooyinkooda ku badan. laba meelood keliya ayay soo aroortay qur-aanka oo yaa-ulmunaada lagu daray. yaa-ulmunaada oo yaa rabbi, laba meelood keliya ayay kusoo aroortay nebi maxamed oo labadaba ilaahay maaragtay u sheeganaya dhib ummadiisa uu kala kulmay. marka laano yaa munaada looma baahna, maaragtay xaajadu way iska caddahay. markaad rabbi aad dhahdo gacanta u taagatid macnaheedu waxa wey yaa rabbi wey, ilaahayo wey. sidaas daraaddeed walaalayaal waxaa loo baahan yahay mar kasta oo dhib iyo walwal iyo mushkilo ayna haysato, oo aan mushkiladas noocay doonto ahaato, ama jirana haysa ahaato, ama mushkilo xagga maalka naga haystay faqri ha ahaato, ama musiibo nagu dhacday ha ahaato, ama qof maaragtay ehelka iyo qaraabadayo oo dhintay ha ahaado, ama wax aad ka baqaysid maaragtay aad ka walwalsantahay inay kugu dhacaan, sida dhibaatooyinkan hadda jira iyo wixii lamid ah. ay murugo iyo ay maaragtay walwal iyo ay baqdin ku haysa, mar walba waxaa loo baahan yahay inaad ogaatid inaad leedahay rabbi sayid ah oo qaadir ah, oo haddii aad baridid subxaanahu wa tacaala ku ajiibaya. waana waxyaalaha aynu haddaynu muslimiin nahay aynu maaragtay qofka muslimka uu mar walba ay nafsadiisu ay u tahay mid munsharixa ah oo aan walwal uusan haysan, oo waxyaalaha maaragtay depressionka iyo anxietyga iyo waxyaalahaas oo dhan ay ku yaryihiin. laanna wuxuu ogyahay dhibka soo gaaray ilaa meel ula baqdo oo ula cawdo ka sokow maaragtay asbaabta uu la imaanayo, oo hadduu faqri uu hayo kale inuu dadaalo, hadduu maaragtay xanuun hayo inuu isbitaal aado, haddana ilaahay buu baryaayo, wuxuu ogyahay ilaahay inuu u sahli doono oo faraj uu furi doono. walidaalika ilaahay ayaa nebi maxamed waxa uu ku yidhi waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariib. hadday addoommadaydu kaa weydiiyaan nebi maxamed oo u sheegay inaan u dhowahay anigu oo aan ajiibayo. walidaalika culimmadu waxay dhaheen min fiqhi ducaa, ducada fiqigeeda waxaa ka mid ah inuu qofku ilaahay markuu baryayo isku bihinbihiyo oo dhibaatada haysata iyo baahida uu u qabo ilaahay uu muujiyo, uu codkiisana hoos u dhigo ou siraysto oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu baryo keligiis. inta meel keliga geesa u leexatid ilahay wuxuu leeyahy udcuu rabbakum tadarucan wa khufya. idinkoo maaragta baahidiina muujinaya ilaahay barya
إلهي سبحانه وتعالى وحلية فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي فإني قريب ودوهي وأجيب وأنا أجيبه دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي marka falyastajiibuu lii runtii waxay u baahan tahay in la fasiro oo la dul istaago ilaahay baa annagaa ilaahayna ajiib baan leenahay ilaahayna wuxuu leeyahay idinkuna ee ajiiba maxay tahay macnaheedu marka falyastajiibuu lii macnaheedu maxa uu yahay laano annagaa rabna ilaahayna ajiiba isna wuxuu leeyahay ajiiba ilaahay macnaheedu waxa sida ay mufasiriintu ay cadeeyeen rumeeye rumayn dhab ah oo itala saarta tala saarasho xaqiiqo ah oo wax weydiismada aad weydiisanaysaan aad ilaahay u baryo subxaanahu wa tacaala idinkoo muujinaya duruuftiina iyo xaajadiina iyo waxa aad ka sheeganaysaan iyo baahida ilaahay aad u qabtaan subxaanahu wa tacaala taa weeye macnaheedu inaan ilaahay rumayno oo awaamirtiisa raacno oo aan adeecno oo aan tala saarano oo isaga wax weydiisano annaga oo aaminsan oo yaqiinsan ilaahay subxaanahu wa tacaala inooga ajiibi doono xaajadeennana muujinayna iyo mushkilada aan ka sheegayno iyo baahida aan u qabnay allahu subxaanahu wa tacaala huwa alqaniy wa naxnu alfuqaraa walidaalika haddaad u fiirsatid ducooyinka ambiyada nebiyadii ilaahay suuratu alambiyaa suurad la yidhahdo suuraddii nebiyada ayaa qur-aan ku jirta suuraddaas ilaahay subxaana wa tacaala afar nebi oo ambiyada ilaahay ka mid ah ayuu ilaahay subxaana wa tacaala mid walba wuxuu sheegay dhib haystay ayuu ka sheegtay markaasaa ilaahay mid walba waxa uu yidhi فاستجبنا له أي إلهي ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم يعني فيري نوح مركي نور واقضي وأن أجيبني بو إلهي لي سبحانه وتعالى وأن أجيبني نبي الله نوح عليه السلام فاستجبنا له ساسو كلا إلهنا وير نبي الله زكريا يا نبي الله زكريا مركو إلهي وبريهي وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له بإلهي سبحانه وتعالى ساسوك نبي الله أيوب مركو نبكي إلهي وكشيغني وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له بإلهي سبحانه وتعالى بل فيرسو فاستجبنا له إلهي سبحانه وتعالى سوء أجيبي أنبياديس سوء أجيبي محايا يجا إلهي أجيبي وإلهي سبحانه وتعالى أوامرتي سراعي ولذلك آخر الآيات إلهي وحا كيري يسوى تلمامين إن يجون إلهي أجيبين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رقبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وحي أهاين نبي يد إلهي سببته وأجيبه وحي أهاين إيجا وحي أهاين كوا أدقدق خيرك نوع عدونها هذا كوا أدقدق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضدك أي دعوة ويران إلهي سبحانه وتعالى أي بريان ويدعوننا وينبري جرين رقبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين iyo maaragtay doonis iyo rajo ay ka qabaan waxa ay weydiisanayaan waajibno iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala iyaga oo gacmaha u hoorsanayo ka cabsanaya maaragtay ciqaabkiisa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala awaamirtiisa raacaya wakaanu waxayna ahaayeen lana khaashiciin kuwa ilaahay u khushuucsan oo isku jajabiya oo isku bihinbihiya ayay ahaayeen marka ducooyinka quraanka ayaynu insha allahu tacaala ducooyinka quraanka aad bay muhiim u yihiin inaynu barano oo ilaahay ku barino iyaga ducooyinka quraan ku soo arooray ilaahay inaan ku barino iyo ducooyinka nabiga ka sugnaaday sallallahu alayhi wasallam duca kasta ilaahay waa ku bari kartaa ay afka doontid laakiin waxa jaamic ah ilaahay ducooyinka quraanka ku sheegay wax walba ayaa ku jira iyaga muhiim ah inaan taxifdisid ilaahay ku baridid subhanahu wa ta'ala iyo ducooyinka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ka sugnaaday kuwaas muhiim ah laano maxaa yeelay ilaahay waxa uu ku ururiyay macna weyn oo maaragtay aad muhiim u ah oo khayr adduuniya khayr aakhiraba ilaahay aa weydiisanaysa subxaana wa tacaala ducooyinkaasaan marka aynu qaarkood badan yihiin laakiin qaar ka mida ayaynu dul istaagaynaa waxaan ugu hormarinaynaa ducada aynu maalintii 17 jeer ka badan aynu ku celcelino markaynu tukanayno quraanka oo suuratu alxamdu ama suuratu alfaatixa ku jirta oo ah ihdina siraata almustaqiim ilaahay saad la socotaan suuradaas oo ah
suuradda qur'aanka ugu fadliga badan ayaa ilaahay subxaana wa tacaala markii aynu ammaano aan idhaahno alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin oo ilaahay subxaana wa tacaala aynu asmaadiisa iyo sifaadkiisa wanaagsan aan ugu tawasulno alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin arraxmaan arraxiim maaliki yowmi ddiin iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin markaanu nidhaahno baana waxaan leenahay oo aan tawxiidkii aan muujino inaan isaga keligiis caabudayno oo keligiis tala saaranayno markaa kadib baan waxaan leenahay ihdinaa ilaahuna hanuuni الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم إلهو جدك توسن نغو هنوني جدك توسن وحوي إن الدين إسلام كآلا سمتد أو طريقة حق إلهي أكو توسيو وحيالها دادكو أيسكو خلافان إلهي سبحانه وتعالى إنو مروا البقوا فتيه توفيق إيا وناق إيا سيدة صحدا maaragtay wax kastoo dadku ay maaragtay ay isku khilaafsan yihiin marba ilaahay inuu kugu hanuuniyo khayrka ilaahay inuu kugu hanuuniyo marka ilaahay subxaana wa tacaala keligiis ilaahu keligaama ku caabudayna ilaahu adigan ku tala saaranayna ee ilaahu nagu hanuuni jidka toosan jidkii aad maaragtay aad ku hanuunisay dadkii wanaagsanaa ee naga horreeyay ahaa rusushii ilaahay iyo shuhadadii iyo saalixiintii iyo dadkii mu'miniinta jidkoodii ilaahu nagu hanuuni marka ilaahay markaan leenahay ihdina الصراط المستقيم macnaheedu waxa weeye waxa kaloo ku jirta bay dhahan culimadu ilaahay oo nagu hanuuni oo nagu sug jidka toosan thabbitna ala hada الطريق ilaahu nagu hanuuniyo ilaahu subxaanahu wa tacaala nagu sug maaragtay hanuunka laftigiisu waxa weeye waa kala darajooyin sida iimaankuba darajooyin uu yahay markaynu ihdina الصراط المستقيم aan leenahay maalin walba 17 jeer ugu yaraan weeye waa salaadaha faralka ah macnaheedu waxa weeye sida culimada qaarkood ay sheegeen zidna hidayatan ba'da hidayah ilaahu hanuunka noo siyaadi ilaahu hanuuni oo hanuunka noo siyaadi saas baa iyaduna baa ku jirta marka ducadaas waa duca aad iyo aad qaali u ah ducada labaad oo insha Allah tacaala ducooyinka quraanka kamid ah waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala suuratu albaqara aayadda 127 ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم مركي نبي الله إبراهيم عليه السلام يا نبي الله إسماعيل أول كساءها مركي كعبة لسيين واتي إلهيين وإلهي ويري سبحانه وتعالى يسوى نوغا ورمية وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وشيك umadaada baa nabi maxamed markii nabi ibraahim iyo ay qawaacida tiirarka kacbada ay taagayeen nabi ibraahim nabi ismaaciil iyagoo ku qowlaya oo oranaya rabbana hadaaytu waataani ducooyinka nabiyada waxa ku badan rabbana iyo yaa rabbana fiiri rabbana rabbigayo taqabbal minna naga aqbal innaka adiga ayaa as-samiicul caliim midka maaragtay maqalida badan aan waxba aysan ka qarsoonayn ee og qulubta maaragtay walidaalka culimadu waxay dhaheen labadaa isim ee lagu khatimay as-samiic al-caliim yani waxay anta as-samiic alladhi yasma'u ad-du'a ilaahu midka maqliya ducadayada ayaa tahay al-caliim baa tahayo axwaashayada iyo laabtayada ilaahu kii og ayaa tahay qulubtayada inaan darta aan u qabanayno camalkan iyo baqdin adiga aan maaragtay aan awaamirtaada aan raacayno inma yataqabbalu Allahu min almuttaqiin marka qofku inuu mar walba uu yiraahdo rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'aliim waa ducaa runtii aad muhiim u ah in lagu ambiyada nabiyada ilaahayna aad bay ugu rabbana aad bay ugu celcelin jireen maaragtay laba meelood kaliya ayaa waxa ku soo aroortay quraanka يا ربي نبي محمد بعد لبضة وشيغاني منا وحوي وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون قوم كيسو كشيغاني حقي أيسن راعين تنلبادنا وحوي قوم كيس أيو كشيغاني قرآن كيني كهاجرين وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا لبضة اسميلود ربي أو يا منادى أي لسعط أي سواء أرورت marka inaynu camal kasto oo saalix oo aynu qabanno markaan tukano markaan sadaqa la baxno markii aynu ay camal aan sameeyno aan ilaahno rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'aliim inaan ilaahno oo aan ku darno wa tub 'alayna innaka anta at-tawwabur rahiim marka ducadaasna iyadana ha lagu dadaalo insha Allah ta'ala waa duca aad iyo aad muhiim u ah ducada saddexaad oo insha Allah ta'ala min adciyatul quraan ducooyinka quraanka kamid ah in dooray waxa weeye
ودعاء رنتي آد يا آد مهم وإلهي لو ويديسانيو خير الدنيا والآخرة خير الدنيا خير آخرة وإلهي ويديسانيسي دعوينك قرآن كوحا كميدة وإلهي كوشي سورة البقرة آيات الله بقول يكو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعاء وحي علماء دهن وأجمع دعاء وأكمله ودعاء أوجو جامعسا أو خير أو ننكلنستي أو أوجو كامل ولذلك سيدا استراد أيو النبي وحو صلى الله عليه وسلم من آد أبدية دعاء آد بنبي أبدين شري وحد دليل صحابي أخذ من شري النبي صلى الله عليه وسلم أنس رضي الله تعالى عنه أيا وحا أويري سيدا صحيح المسلم كترته كان أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعاء أقبضا النبي وكد عيسن جري دعاء أسبيه دير النبي ومحولها يا اللهم إلهي آتنا نسي في الدنيا حسنة نسي وفي الآخرة آخرنا حسنة نسي وقنا إله نقبض بادي نقا إلالي عذاب النار هذا waxa su'aashu ay tahay maxay tahay xasanatu dunya maxay tahay xasanatu aakhirana maxay tahay xasanatu dunya waa wax kasto wanaagsan waxa soo gudagelaya xasanadii adduunka caafimaad ilaahu caafimaad nasi waxa soo gudagelaya ilaahu zawja saalixa nasi ama zawj saalix hada qof dumar tahay waxa soo dhexgelaya rabbana aatina fi dunya xasana marka leedahay ilaahu caruurta baari iga dhig وحسو gudagelaya rabbana aatina fi dunya xasan marka leedahay ilaahu sumcadayada hagaaji waxasoo gudagelaya ilaahu guriga noo hagaaji ilaahu gaariga noo hagaaji ilaahu guri waasica nooga dhig ilaahu risqi waasica nooga dhig ilaahu cilmi naafica nasi wax walba oo adduunka aad rabtid baa soo xasana waa wax kasto ilaahu noo wanaaji way ربنا آتنا في الدنيا حسنة طيب وفي الآخرة حسنة وحمحيتها في الآخرة حسنة وحول بقى الآخرة أباهنتها وناق إله ميزانك نوع عسليسي آخرة ميزانك حسناتك إله كتابك قعنت مدق نغسي إله حسابته نو خفيفي إله نغدي كو هرسان دون عرشك هوسكي سمرك دادكو أي ولا هوبيان وقرح دا لسود دوينيو إله نغورا بحوتك نبي محمد صلى الله عليه وسلم إله سراتك لمري دونو جهنم دوشي لساريو إله ربي ونغبد بادي ونبد إله جنة نقلي إله نغو أرزاق إنان كو أرقنو رؤيا هذا oo maaragtay waxa ugu khayr badan oo dadka ahlu jannaha ay heli doonaan marka xasanada aakhirana waxa soo dhan ba soo dhaxgalay marka waa ducaa jaamica oo wax dhan kulansatay oo kelmado kooban lagu soo meesha aad ilahay ilaahu adduunka caafimaad si ilaahu isi caruurta baariga ilaahu waxa isi waxa tirin lahayd aakhirana wixii artay tirin lahayd baab lagu soo koobay waxa tiraahdaa baa lagu yiri allahumma aatina fi dunya hasana إله أدونك حسنة نصيحة وحول حسن وناق نوغدي وفي الآخرة حسنة وحول وناق نوغدي ميل والبو لما رأيو آخرة وناق نوغدي مركز دعاء سوى دعاء عجيب له نبي قلنا آد أيو أبدين شري ماركتي هل لقود ذلك يسين كتقل مر والبكو دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعوين كالقرآن كسو أروري وحا كميد إلهي سبحانه وتعالى سورة المؤمنون آيات سغاشين تضوى آيات سغاشين سيدين إلهي وحي وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ودعاء عجيب للدعاء ذا وقل واحد هذا نبي محمد ومدادون هذا ربي أيا ربي جايو أعوذ بك أديك أيامكم مجنجلية أعوذ بك معناه وحوي التجئ إليك أي التجئ إلى الله إلهي أيان مجنجلية محان كمجنجلية من همزات الشياطين شيطانك وسواسكيس يا شركيس با إلهي كمجنجلية وأعوذ بك ربي إله أديكم مجنجلية أن يحضرون إني صح حاضران وأي مادان مركي أن وح قبسنا أي وح كستمر كان قبسنا أما عبادها أهاتو أما صلاتها أهاتو أما صونها أهادو أما مركا حاسكاي أدو اسكو تغيسانا أهادو أما ذرية أدو مركا إني سو حاضران شيطان ميلا نجو يعني ودعاء عجيب له إلهي أياد منقليسا وآد كالميسانيسا وآد ويديسانيسا إنو كاهور استاغو شيطان شيطان إنو إلهي كاهور استاغو إلهي وحا ليدها أديغان حمايكو ويديسانيا شيطان شركيس إلهي إلالي
maxaa yeelay waxay la macno tahay acuudu billahi min ashaytaani arajiim, yacni ilaahu adaan shaytaan baan kaa baryaa inuu dhibo oo uu dhibo diintayda ugu dhibo, iga waswaasiyo, iyo adduunyadayda inuu iga waswaasiyo, inuu iga hor istaago xaqa. rabbi acuudu bika macnaheedu waxa weye actasimu wa altaji'u bika, ya ilaahu adiga ayaan kugu tiirsanaanayaayo, aan ku magan gelayaayo, adiga awood badana ah. من همزات الشيطان. همزات الشيطان مفسرين waxay dhaheen waa nazaqatuhu wa wasawisuhu, ya inuu ku duro ama uu ku waswaasiyo ma aragtay baad ilaahay ka magan gelaysaa. wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. shaytaanka anagu uma jeedno, ya anagu ma arka, isagu na arkaya sida ilaahay quraanka uu ku sheegay, innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. laakiin anagu ma arki karno. cadow marka aadan arki karin ha iskama celin kartid, marka ilaahay waa inaad ka magan gashid. waxaad u baahan tahay maadaama aan u jeedin inkaar qabahaas waswaaska badan leh oo isaguna noo jeedo cadowna uu yahay, oo ilaahay yiri fattakhiduhu in caduwun buu idin yahay, fattakhiduhu caduwan. ilaahay yiri haddaba ilaahay rabbi uma jeedna, ilaahu naga celi cadowgaas, ilaahu adaan ku magan gelayna. wa acuudu bika min hamazaati shayaaiin wa acuudu bika rabbi an yaxduruun. ya ilaahu inay soo xaadiraan meel kasta, markaan cunayo inay soo xaadiraan oo cuntada ila qaybsadaan, markaan wax cabayo inay soo xaadiraan sharaabka ila, markaan reerkayga isku tagayna inay maaragtay waa in laga magan galo, marka aan gurigayga soo geliyo ama aan ka baxayo, marka aan seexana ilaahu shaytaan soo xaadirin meelan joog, ilaahu shaytaan iga ilaali way macnaheed. acuudu bika rabbi an yaxduruun. حتى مركان دمانية إله مركان دمانية شيطان يسوع حاضر، لأنه الشيطان ضدك قارب مركان دمانيان وحويه وداراي وجوتشيا دب أيوم يولول بكو أبورا، بينما قف إلهي كمان قال مركا ودمانية قف دجن أو مارك رجيس وإلهي وكوين هاي وأهانيو. أعوذ بك ربي أن يحضرون في أي شأن من شؤوني، إنه الشيطان صح حاضرا إله كمان قال مركا والدعاء رنتي جامعة. adciyada quraanka saan hore usoo sheegnay waa ducooyin kooban oo wax walbo khayra ilaahay uu ku jamciyay, ya waa ducooyin kaamil oo aad u wanaagsan. rabbi an yaxduruun, ilaahu adigan shaydaan inuu soo xaadiro meelan joogno ayaa ilaahu ka magan galnay. ducadaas iyadana lagu ducaysto quraanka ku soo aroortay, waana duco muhiim ah oo shaydaan ba ilaahay ka magan galaysa iyo wasaawistiisa. salaadu ka waswaasinaya, ehelkaaga iyo adigu isku diraya, adiga iyo asxaabtu isku diraya, adiga iyo bulshadu isku diraya, dib buu ku geysanay. marka ilaahay ka magan gal shaydaan, waxa ilaahay uga celi cadowgaas leh. ducada shanaad oo aynu soo qaadanayno 10 ku soo qaadanayno oo ducooyinka quraanka ku soo arooray kamid ah, ilaahay baa waxa loogu tawassulaya oo loogu dhawaanaya iimaanka. ya ilaahu iimaanku waa amal saalixa, marka amalka saalixa ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu dhawaanaysa. waxa leedahay ilaahay waan ku rumaynay, ilaahu dambigayga dhaaf, ilaahay oo astur ceebahayaga ayaa dhahaysa. bal u fiirso suurata ali imran aayada 193 iyo aayada 194. ilaahay subhanahu wa ta'ala dadkii muuminiinta ahaa habeenkii tukada ilaahay maaragtay barya maaragtay يا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. dadkaas waxa ay ilaahay markay baryayaan waxay dhahaan ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. ودعاء عجيب له يا مركي إلهي أوكعين قياما وقعودا وأي كنت تفكرين ما عرفت إلهي خلق جيسا وعيدهن ربنا ما خلقت هذا باطلا صمدة حديقها ما عرفت نبي همينك مركي وقعه آياتها سوء آخرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما وقعودا. dadka wanaagsan markii ay ilaahay baryayaan ducadaas ay dhihi jireen oo waxay dhihi jireen faqina عذاب النار ilaahu naga badbaadi naarta, ilaahu naga badbaadi naarta, ilaahu naga dhowr. ربنا إنك من تدخل النار إله قفك أدنار تجلسد فقد أخزيته وادهوجس وهلاجس يا وواد ليس وإهانيس وما للظالمين من أنصار. ظالمين تا وحقرقار ومسونان. مركا إلهي بوحى الله توصل يا إيمانك
ربنا إننا سمعنا مناديا إله وحن مقلنا مد كل واقية أو أرنية ينادي للإيمان إلهي رمي وأنبياء إلهي رسوشي إلهي بان مقلنا يا رسوشي إلهي أو إلهي رمية أيان مقلنا نبي محمد با إلهي نيري إلهي رمية مركو سانا يرينا أن آمنوا بربكم مركو نيري فآمنا إله وارهمين فاغفر لنا يا فاغفر لنا إله نؤدم داف يا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا إله ذنوب تداف أو ماركتي إله يو دبول سيئاتك فرق يقول حية اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا إن تقانيد بالوبانية اغفر لنا ذنوبنا معنا وحوي اعفو إله عفي ذنوبتي وتجاوز إله نوضعف وحي الدنبي أنقلني وكفر عنا سيئاتنا نوحوية إله أستر إله قففك عن سميني إله الدنيا آخرة ونعسر دعوينك النبي كسرنا هذا وحا كمدها اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك إلهي نأستر أدونك إنتان شوقنا دول صعونه إلهي سبحانه وتعالى إلهي محون أستر الله إلهي محون عيبنا أستر هدي waxa aynu sameeyno iyo ceebaheena ay dadku ogaan lahayn ama qofka wajiga looga qori lahaa adduunka ba kumayno cayshneen walidaalika imaamkii weynaa qaxtaani waa tuu lahaa nuuniyadiisa والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ساسو كالبيت أهبا كتشرتي معانيس وساسكها هدي والله لو علموا قبيح سريرتي هدي وقال لهين حمانتا كتشرتا لعبتي نين عالم ولي بقاها قف والبقو إلى كل ما هي ورنقتك سلام ما ينودي لاي لكن إلهي بأن أصري سبحانه وتعالى وكفر عني سيئاتي ولذلك إلهي سبحانه وتعالى دتك مؤمنين تأه qaar badan oo kamid ah aakhiro marka dadka la xisaabinayo ilaahay subxaanahu wa ta'ala si gooni ugu sheegay waxaas miyaadan samayn wax khalaaiqda hortooda kuma fadeexayo markaas uu dhahaa waa ku cafiyay ayuu dhahaa maartii nabiga uu sheegay sallallahu alayhi wasallam marka macnaheedu waxa uu kafir anna sayi'atina waxa weey ilaahuna astur ها كفر سيسا وحي للدبولال ده كافر كمحا كافر لو يري لأنه يستر وحو أستريا وديديا ربوبية إلهي أيو ديديا أو ربوبية إلهي وحد وحو والبا أي تسينيان إلهي إنه خالق وياي سمدا أبوري دولك أبوري جيدها أبوري أناقنا أبوري إلها أي ربوبية أي واضحة أيو دبوليا يا كان سمي مية منع اعترافيه كافر ساسا لو يري ولذلك قفك بيرتا أبورو ميراها دولك كوريدو أو كود بولنا كافر والدها لأنه مريه دولك كود بولي يا ماركتي سيدو قرآن كبكسو أرورت مركا دعاداس إيادونا ودعاء آد مهم وإلهي سبحانه وتعالى ونوغها نوني إلهي كبرينو ماركتي وانا دعاء لقود دا المركا ودعاء آد مهم توفيق إلهي إنه نوافجيه ولذلك دعوينك وضوء حكمده وتوفنا مع الأبرار آياته سورة آل عمران إلى آخر كدعاء ويسي وذان إلهينا واسيل وأن أجيبني بو إلهينا أولي سبحانه وتعالى مركا دعاء سيدنا ودعاء عجيب لما ركتي ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك إله وحي أدوما أبلن قادي قرقارك إله نسي ولا تخزينا إلهنا فضيحين يوم القيامة يا مركي لسكوي هذا ماشى محشر كلسكوي هذا أو خلائق دوران أو هلكس ولذلك إلهي وحي فاستجبنا لهم وأنا أجيبني دعاء عظيمة ويا مرك في آخر سورة آل عمران أي كجرتا دعاء اللي هذا إنه سوق عضنا إنه وإلهي إنا نودي سنو إنه نسوء وحقا نقصوا الثبات يا وأدعي القرآن كوحا كميدة ربنا لا تزغ قلوبنا وحي كجرتا سورة آل عمران آية السديداد وي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ربي جيو أدايت واتان ودعوينك قرآنك وحا أي كفر فرتان ربنا أما ربي لبدا سأدو قبضا يا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا على سكوبا مركا أدقنا واحد رواية إنا سأبهدي ربنا ربي جيو لا تزغ قلوبنا قلوب تيدا هائلين أو كوا حق كبيرها كدقي يا مركي أدنا هنونسي كدب إلهيو وهب لنا من لدنك رحمة نوهي بأكتا على نحريس إنك أدقو وحتى الوهاب كي وما ركتي وحيبية خير كأياتاي مركا دعاداس ودعا رنتي آد مهم وأيدنا أي نكون دعايسانو ربنا لا تزغ قلوبنا إله قلوب تيدا حقها كالليحين مركي أنا دميني
هنونك يا معانكيس وهب لنا من لدنك رحمة معناه وحا إله نسيه فضل كاغ يا كرم كاغ هبة من الله معناه وحا منا من الله يا رحمة إله نسيه ورحمة داس أو آد كدغيس قلوب تيدا مid أو هوغانسنت حق إله نو نحريسو يا إنك أنت الوهاب marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa waxaad ka dalbaysaa oo weydiisanaysaa inuu ku hanuuniyo oo maaragtay uusan quluubteena uusan xaqa ka leexin markii uu xaqana tusay kadib walidaalika nabiga sala allahu alayhi wasalam ducadiisii waxaa ka mid ahay sida saxiix muslim maaragtay uu aad ugu celcelin jiray saxiix muslim baa soo saaray xadiidkaas imaam muslim fi saxiixi ducadii nabiga waxaa ka mid ahay allahumma sarrif allahumma ya muqallib alqulub allahumma ya musarrif alqulub ay riwaayada imaam muslim ahayd sarrif qulubana ala taacatik ilaahay gadgadiya qulubta gadgadiyow qalbigayaga ku gadgadi oo ku sug taacadaada ya ثبت معناه واحد ثبت قلبي على دينك وي سي ما عرفت رواية كلام الله كسك إلهي وكسك قلبي جيجا إله دين هذا كسك مركز دعاء يدنا آد بمهم وتاه دعاء الضباط ودعوين كقرآن كميد وأي مسوق عادنا إنه ودعاء هنتي آد يدنا مهم وحالي هذا دعاء الأربعين مركو قفكو جارو عفرتن إنه آد دعاء أبضيه ayaa loo baahan yahay iyadoo aysan ahayn cid kale inaysan u banaanayn aan laga fahmayn qofku intuusan 40 gaarina ilaahay uu ku bari karo markuu 40 dhaafana ilaahay uu ku bari karo ilaahay waxa uu yiri subhanahu wa ta'ala fi surati al-ahqaf ayada 15 hatta idha balaqa ashuddu markii ilaahay uu ka soo hadlay wasayna al-insana biwalidayhi waxaan u dardaarmay insaanka waalidkiisa xusnan markii ilaahay oo ihsaanan ilaahay uu yiri subhanahu wa ta'ala با إلهي وحيد حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين قفكو مركو أفرتن جاره وحير هذان علمدو وسن 40 مركو قفكو أفرتن جاره وهذا سن الكمال ومركو كامل ونقضي نولشيس يعني واحد لميتها سيدي قف بور فولي او بورتي مركو دلدا غاري دلدي با غارتي افرتن وخي كدنبي هوس با اسو دغيسا هوس با اسو سوعتا marka macnaheedu muxuu yahay rabbi awzi'ni macnaheedu waxa weeye allahumma alhimni wa wafiqni ilahu igu hanuuniyo iwaafaji أن أشكر إن أكون شكريا نعمتك التي أنعمت علي نعموينك أدوك الله ديستي يا نوع دون تاهت نعم الدنيا ونعم الطاعة ونعم الدين يا نعموينك فرها بدن أدونك إلهي كسي عافماتك كمدة ذريتك كمدة أمنك كمدة أقونتك كمدة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يا بطرين كري نعموينك إلهي نسي نعمة هانونك كمدة إلهي هانوني إلهي نغدق من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا إلهي نغدق هو كتاب كيس أخرية هذه نعمة إلهي نغدق كوا معركتي ذكري كيسا إلهي عرب كود أوافجي ربي أوزعني إلهي إلهامي وأوافجي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي نعموينك أدوق الله ديستي رنتي قفكي إلهي وكهنونيو إنو إلهي شكري كيسا وبديه ونعموين اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نبي واتو سحابي وآذو على معاد إنو أهابا رجينيا واتيو كويري نبي صلى الله عليه وسلم هكتك المرور بين هذه يا مارك صلاة قداشوضة يا اللهم أعني إله يقرقر على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مركا معنيه ذو حوية أفرتن باقارتي وعديق أوله بيلمتها إلهي واي كان أفر إله وحن قاري قمدي ما قاري ماشي يسريسي عمري جاي يا إله سبحانه وتعالى عمري بعد سيسة واسعة ووحن قاري ماشي وكامل سنيد حق أود حتى إذا بلغ أشده حق أود ماركتي عضلاتك أما مرغيضة ماركتي إيه حق أود مسكحة حق أود عقلك يا إله ربيو إله حق إوافج نبينا صلى الله عليه وسلم صلى الله سعتان وسيرة النبي إن بدن معركة ميال بدن لوج شيء إلهي نبي نمدا وح وكوب لعبي يسوى ابن 40 سنة أفرتن سنة مركو جاري وأنبياء بدن أنا
بدانا حد كامركي جاران برسالة لوسو ديبجي وبدانا ما هن قار بدن أو يو كيرير إنتاس إلهي سبحانه وتعالى وكوج الله ديستي أو بعشرتي ما عرفت إنه النبي نبذ يا رسالة يا هنونك ما عرفت زكريا يا عيسى يا غير كودبة ما عرفتي مركا خصب ما هن النبي والبا أفرتن لكن سيو بدناين أفرتن مركي جاران أي رسالة إلهي سبحانه وتعالى ووقت يقفكوا كامل كونه حاجة عقلك dulqaad nimada xagga maaragtay inuu qofku maaragtay ka fiirsashada dhan walba markuu uu gaaro 40 ayuu kaamil noqdaa walidaalika xataa takhadiirtu waagi hore waxay dhigi jireen maskaxdu qofku ilaa dhowr iyo 25 markuu gaaro maskaxdiisu kaamil bay noqotaa daraasooyin dhawaan soo baxay waxa la ogaaday maskaxdu inay korayso intaa siiba qaybta hore ilaa 40 laga gaaro daraasaadkaas qofkii u baahda uu heli karaa internetka ayay ku jiraan takhadiirtu ka hadlaya daraasaadka u dambeeyay ee dhawaanahan soo baxay waxay takhadiirtu ay cadeeyeen takhadiirtu ku takhasusta maaragtay neurology iyo waxyaalaha maskaxda ku saabsan in maskaxdu ay korto oo ay kobocdo oo ay maaragtay ilaa 40 laga gaarayo maaragtay markuu 40 gaaro waa qof kaamil ah fakarkiisa awoodiisa maskaxdiisa dulqaadkiisa sabirkiisa ka fiirsashadiisa maaragtay marka ilaahay inuu marka uu baryo ayaa loo baahan yahay markuu 40 uu gaaro oo ilaahay uu aad u baryo oo ilaahay ilaahay intaasoo khayra iyo intaasoo nicmo siisay ilaahay iga dhig wa awzicni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday nicmooyinka aad aniga iyo waalidkay ku laan nicmada waalidka ilaahay uu siiyay adna way ku soo gudbisaa bal xataa caruurtaada u soo gudbaysaa maaragtay caruurtaada ayay u sii gudbaysaa maaragtay marka ilaahayna ducadaas in aad iyo aad ilaahay loogu baryo ayaa loo baahan yahay dhanna waxay ka tahay hanuunin ilaahay uu nagu hanuuninayo inaan toobada aynu cusboonaysiino laana waxa weeye hadda wixii ka dambeeyo hoos baa u socotaa yaa marka ilaahay inaynu toobada aan cusboonaysiino 40 markaan gaarno qofkii ka weyna min baab awla way ducadan marka cid walba ay anfacaysaa qof 40 aan gaarin iyo mid 40 gaaray iyo mid 40 ka weynba way anfacaysaa laakiin waxay aad iyo aad ay loogu xoojinaya qofku hadduu 40 gaaro inuu ducadaas u badiyo kii ka sii weyna deesna waa min baab awla يا معناهدنا ما هن قف كير إنه سكوت عيسن كريم معناهد ما هن وكنت عيسن يا ربي أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ولذلك إمام النخعي سلف كي واحد لجوري إن بدنا كنيسية النخعي غير كيسيو وحاولي شري وحال إمام النخعي وحال يسوع جوري إنه يري كان يقال لصاحب 40 احتفظ بنفسك قفكم مركو أفرتن جارة وحال أورنشري احتفظ بنفسك او معناهدو yahay انتبه لنفسك ورنفtaada war hadda wixii ka dambeeyo hoos baa socotaaye iska gaaro naftaada maaragtay waa care yourself meesha ay ka dhahan maaragtay luqada ingiriiska ولذلك سلفku aad bay u badin jireen markay 40 gaaraan waxa ay badin jireen acmaasha aakhirada dhikriga salaadaha iyagoo awalba badin jiray bay aad u sii badin jireen bal qaarkood waxay u tafarruqi jireen cibaadada imaamkii weynaa amiirul mu'miniin kana Umar ibn Abd Aziz rahimahullahu ta'ala ayaa waxa laga wariyay sida kitaabka Hilyatul Awliya ku soo arooray waxa uu yiri tam markii isagu uu dhamaystay 40 sano markuu u gaaray ayuu ilaahay bariyay subhanahu wa ta'ala ducadaas ayuu ku bari ya markaasuu ilaahay markii islaamahaas u dhintay ya soo 40 jir ah ya ayuu dhintay rahimahullahu ta'ala sida kutubada ma taraajumtiis maaragtay taariikhda lagu soo wariyay ducada kale oo aynu ku soo qaadanayno ducooyinka quraan kamid ah aynu ku soo qaadanayno 10ka waxa kamid ah ilaahay subhanahu wa ta'ala inaynu nafteena ilaahay u barino iyo dadka qaraabadeena ah iyo dadka mu'miniinta ah ya ducadii nabi ilaahay nuux suuratu nuux aayada 28 suuratu nuux aayada u dambayso aayada 28 ayaa nabi ilaahay nuux ilaahay wuxuu ku bariyaa rabbi hadaayta wataan u fiirsa ducooyinka nabiyada rabbi ya rabbana ba u badan rabbi ya rabbana labadaas u badan يا مناددة لا جوي لأنه واسكع عدها إن ربي بمعنى وحيا ربي وي مركا نبي لأنه حجر آيات ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات سوء حكي أو ترتيبي واسدة أقوم مهمسا مركا الدعاء سنسيد هرت ابدأ بنفسك يا
markaa kadib dadka kuugu sii xiga usii ducee say isugu xigaan rabbi ighfir lii ilaahu ii dembi dhaaf aniga waliwaalidaya labadaydii waalid ilaahu u dembi dhaaf waliman dakhala baytiya ciddii guriga soo gelaya waa xaaskaaga waa caruurtaada waa adeerka waa qaraabadaada waa abtiga baa soo gelaya ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين إله مؤمنين ماركتي رجع أود من داف والمؤمنات مؤمنات كماركتي دمركا مركا نفتي سوء دعية مركا أوريسي مركز لأنه دعاء وحلوبة هي ابدأ بنفسك في الدعاء دائما رب اغفر لي ولوالدي بفيري حتى أنت والدك أود دعاء أدوك نفتي أدوك دعايسو أديك أقوبها هبضا إلهي سبحانه وتعالى ولوالدي مركو دعايستين وحكو حكي إلهي ولبدي دي والد لأنه عدة أوه حق بدن لبدا هذا والد وعدة كوه حق بدن ولذلك إلهي سبحانه وتعالى مرول بالقرآن كسداء فرستي إلهي توحيد كسوحة وكل مانيا لبدا والد أن اشكر لي ولوالدي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان آد بالقرآن كوكسو نقطة مركا لبدا والد وأكتها دبك أي كاسو مرين hooyada dhibka ay ka soo martay laga soo bilaabo walci ilaa marka ay ku dhashay foosha kadib barbaarinta ay ku barbaarinayso naaska ku jaqsiinayso aabuhu walwalka tarbiyadaada uu ka soo maray iyo dadaalka uu kula soo maray marka waxaas oo dhan waxa loo baahan yahay inaad naftaadana u ducaysatid waalidkaana aad ku xijisid waliwaalidayya waliman dakhala baytiya mu'minan waa dadkii qaraabada ahaa in culimadu qaraabadii walaalaha maaragtay caruurtaadii xaaskaagii kuwaas way kuwa badanaa gurigaaga soo gelaya aqaaribuk waa qaraabadaada wey waliman dakhala baytiya mu'minan markaa kadib mu'miniinta u duceeyey rag iyo dumarba cumuuman ayuu u duceeyey maaragtay marka ducadaas iyaduna waa duco aad iyo aad muhiim u ah ducada sagaalaad insha allah casharkan ku khatimayno waa sii wadi doonaa casharada waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala in uu naga dhigo kuwii xaqa ku sugnaada oo ilaahay inuu nageliyo oo naga bixiyo makhraja sidqin ilaahay inuu nageliyo ducadaas waa duca muhiim ah suuratu israa aayadda 8 ilaahay wuxuu leeyahay rabbi adkhilnii mudkhala sidqin wa akhrijnii mukhraja sidqin waj'al lii min ladunka sultaanan wa nasiira inaad ducadaas iyadana badisid waa muhiim ربي وأدخلني إجلي مدخل صدق يا مكان جليد أو رنأ ميل رون أنا يقبحي رنتي تفسير كذا معاني بدن باكوتشرته أدخلني مدخل صدق معاني وحوي وحول بقى أن جودك جليه إله أديك كرالي جليه كدك وحول بقى أن جودك جليه أما جوري هدان جوري جليه إله أن قسم يا رالي كتاي haddii aan hadal dhex galayo ilaahu aan ku sameeyaa hadalka wax ku raal geliya haddaan beec dhex galayo contract ama maaragtay haddaan galayo ilaahu mid ku raal geliya ka dhig madkhal saas weeye macnaheedu mudkhal sidqi wax ilaahu waxa ka dhigtaa ku raal geliya ilaahu shayna hay dhex gelinin mashruuc ha ahaado shaqo ha ahaado guur ha ahaado ilaahu waxa ka dhigtaa mid ku raal geliya wa akhrijni mukhraja sidqina waxa weeye ilaahu ka dhig khuruujkayga ashyaada aan ka baxayo wax kasto aan ka baxayo taacadaada iyo liajlika inaan uga baxo xataa khuruuji min adduunyada xataa markaan ka baxayo ilaahu ka dhig mid aan taacadaada anoo ku dhex jira aan uga baxo asidqu macnihiis waxa weeye sidiisaba alxaq athaabit ilaahu xaqa igu sugno weeye macnaheedu oo wax walbo aan guda gelayana ama guri ha ahaado ama shaqo ha ahaado ama mashruuc ha ahaado ilaahu wax ku raali geliya ka dhig wax kasto aan ka baxayana ilaahu liajliga aan uga baxo rabbi adkhilnii mudkhala sidqin wa akhrijnii mukhraja sidqin waa duca iyaduna aad iyo aad cadiim u ah wax walbo khayr ah oo aan gelayo ilaahu waxaad ka dhigtaa markaad gurigaaga aad gelaysid markaad ka baxaysid marka waa inaad mar walba aad ku ducaysatid ducadaas guriga markaad gelaysid iyo markaad ka baxaysid iyo markaad mashaariica gelaysid mashruuc wuxuu doona ahaado guur ha ahaado tijaara ha ahaado mar walba ku ducayso waa duca aad iyo aad muhiim u ah waj'al lii min ladunka sultaana nasiira ilaahu agtaada waxa iga dhigtaa mid looga gargaaro iga dhig maaragtay ayaad ku ducaysanaysaa duca aad muhiim u ah weeyaa lagu dadaalo hada wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wallahu